qaxootiga Soomaaliyeed ee ku jira xerooyinkan qaxootiga ee Dadaabaya waxay ka codsadeen madaxweynaha dhawaan la doortay ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu booqasho ku yimaado xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab isla markaana uu kurgalo xaaladaha ay ku nool yihiin qaar kamid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xerooyinkan qaxootiga ee Dadaab oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan ku leeyahay anagu waxaan nahay qaxootiga ee ku nool Dadaab baanu ku nool lahay waxaan nahay qaxooti 25 ka codsanayna inaan mar una soo gaadho mar ay ahaataba xilli allaaliye xilligan fursad yeesho waayo 3 sano ku dhawaad ayaanu qaxooti ahayn marka waxaan ka codsanayaa in mar una soo gaadho oo waliba noo timaado oo xaaladda aan ku jirnay siday dadka dib in loo celiyo iyo ilan kale iyo magaciisa iyo xaaladana si aad u ogaato madaxweyne marna soo gaadho maan raxiin waxaan halkaan hambaliyay salaan ugu dirayaa ummadda shacabka Soomaaliyeed dawladda noo dhalatay waxaan halkaan tahniyad uga dirayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan nahay qaxootiga ku sugan xeryaha Dadaab waxaan rabnaa mudane madaxweyne inaad marna soo booqato oo aad noo timaado xaaladayada iyo sida aan ku noolnahay aadna aragto sida taasaan ka codsanayna hadaa tahay madaxweynihii noo dhashay oo aan taageernay oo habeenkii maalintii dhow dabaaldegaynay حيث واحد سلام يا أمة الصومالية شعب الصومالية دمان ميل هيدا دافع كنت على الذي سلام بعسن بانبريا سلام كبعد واحد سلام يا مدحوينها نور الشيخ ماچو سلام كبعد يا dadkan duuman iyo xiliyaha ku jira sharci iyo 26 sano ee qaxootiga ah soo gaaro oo wajigiisa iyo dhaayihiisa ula yimaado maxay haytay yaan ka codsanaynaa la yiraahdaa aadan qurux boorle waxaan ku noolahay xiriyaha Dadaab waxaan ahay odayaasha ugu macnaha degan Dadaab ee qaxootiga waxaan ku noolahay xagar dheere